laga baryaa subxaana wa tacaala. say gebagabadaadu noqon doonta lama oga. meeqaa wanaagsaneed oo hallowday gebagabadii geerida markii dhowaatay, meeqaa xumeed oo hagaagtay mar allaala marka gebagabadii la gaaray. rasuulku inuu dhaartay buu yidhi macbuudkii asaga maahane mid kale uusan jirin baan ku dhaartaye axad idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli nnaar, dadka ahlu naarkaa camalkooda. waa sida dadka u muuqata, dadka ahlu naarkaa camalkooda ummaddu aad bay ula yaaban yihiin. habaar helahan muu hagaago, ninkan muu iska toosay leeyihiin. camal ahlu naar ayuu markaa ku jiraa, ilaa asaga iyo naarta ay isu jirsadaan dhudhun buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, oo la leeyahay hadda hadduu dhinto naartuu gelayaa. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray oo ahaa nin wanaagsan inuu yahay. wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli ljanna, ahlu jannaha camalkooda, markaasuu jannadii gelaya. ilaahayaa toosinaya, waa hagaagayaa, towbaa la waafajinayaa, camal fiican baa la waafajinayaa, khayr iyo wanaag baa la waafajin, khaatimadiisaa hagaagaysa. intaa wixii ka dambeeya wuxuu gelayaa jannadii. qof idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa dadka ahlu jannaha camalkooda. waa sida dadka u muuqata, ilaa asaga iyo jannadu aysan isku jirsanin ilaa dhudhun maahane. oo dadku ay leeyihiin kan hadduu saa ku dhinta jannaduu gala, kan hadduu saa ku dhinta khayr iyo wanaag buu gaara. xaaladaasay dadku leeyihiin. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray. waa gadoomaya, wanaaggii buu xumaan ku beddelayaa, salaadii buu taariku salaadnimo ku beddelayaa, qur'aankii buu ka tegayaa, xijaabkii bay tuuraysaa. waa gebagabadii, dhimashadii baa soo dhowaatay. khaatimadaa xumaan rabta, khaatimadaa waxay isku beddeli rabtaa ahlu naarnimo. qofkii fiicnaa baad arkaysaa isrogay oo dhinac kale u noqday. saasuu ku dhimanayaa, markaasaa wuxuu gelayaa naarta. saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. walaalayaalow aan aad iyo aad u dadaalno. daartaan aan joognaan ku sugannahay daar baa ka dambaysa. daarta ka dambaysa waa daartii qabriga. qabriga waxaa ka jira walaalayaal xayaato aanan anagu markaa aqoonin. xayaato lagu magacaabo xayaatadii barsaqa ayaa markaa jira. war barsaqa waa meel aad iyo aad u dhib badan. meeshaa qof allaala qofkoo annaga naga mida way sugaysaa, laakiin dadna waxay u noqon doontaa beeraha jannada ka mid ah, dadna waxay u noqon doontaa godgodadka jahannama ka mid ah. waciyaadu billaah. qof walbow ka dadaal sida aad u hagaagi lahayd ku dadaal. war qof walbow meeshaa sidii lagugu wanaajin lahaa. barsuqu waa guri cajiib badan, waa nolol aan annagu la socon oonan aqaanin. waa nolol qayb ahoo iimaankii ilaahay noo tilmaamay aan ku rumaynay iyo sida kitaabka loogu tilmaamay. rabbi asagoo tilmaamaya barsaqa iyo xayaatadeeda ayuu yidhi xataa idaa jaa'a axadahum lmowt, ilaa midkood geeri u yimaado, qaala rabbi irjicuun, gadaaliyo celiyuu leeyahay. war gadaaliyo celiya, godkaan ha igelinina. barsiqii ayuu diidan yahay. sababtu mataqaanaa waa la tusiyey. markuu sakaraadka ahaa baa looga qaaday kashafka iyo wixii markaa ka saarnaa. fakashafnaa canka khitaa'ak, daboolkaagii kaa qaadnay buu dha ilaah subxaana wa tacaala. iceliya, war meeshaan ha igelinina xataa idaa jaa'a axadahum lmowt qaala rabbi irjicuun. ilaahayaa idinku dhaariye gadaal iyo celiya. lacallii acmalu saalixan, meesha camal fiican in loo qabtay u baahan tahay. hadduu rabaa inta la soo celiyo camal saalixa qabto, rabbi caabudo, salaad dukado, diin barto, kadibna qabriga la geliyo. ee hadda ha igelinina, waayo saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciriirina. saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu guba. saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciqaabaya. rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt. waxaa loogu jawaabayaa kallaa, ma jirta arrinta. war qofku hadduu dhinto barsaqaa la geeya. qofku hadduu dhinto ciiddaa laga hoos mariya. qofku hadduu dhinto barkin looma qaado. qofku hadduu dhinto sariir looma geliyo. qofku hadduu dhintona looma geliyo.
qofku hadduu dhinto meel cidlaa looga soo taga. camalka saalixa shaqeeya, camalka saalixa wehel noqda, camalka saalixa iftiin noqda, camalka saalixa qabriga waasiciya, camalka saalixa qofka horumar iyo wanaag gaarsiiya. qabyaalad iyo xoolaanu orodna, waxaan qiimo lahayn baan maanta ku dadaalnaa. war wixii adduunka loogu talagelay in lagu joogo yaan maanta ugu talagalnaa aakhiro. saa yaa la yeelin. war qof walbo waxa aad haysato aakhira ku raadso. war qabrigaasaa dhib badan, war qabrigaasaa ciriiri badan, war qabrigaasaa imtixaan badan, qabrigaasaa mugdi badan. lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa. waa hadal uu iska dhahay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ka soo qaad maloo la tixgelin maayo. diinta alluu tixgelin waaye, aayaadka allou dhaqangelin waaye, ilaahay kalaamkiisuu dhagaha u raaricin waaye, jirhkiisuu islaamka ku baabi'in waaye. intuu noolaa ayuu xayaatadiisii ka dhigay xayaato aan diinta islaamka lagu dhaqmin. saa darteed asagana loo tixgelin maayo, hadalkiisa la qiimayn maayo suu diinta u qiimayn waayey, hadalkiisa kor loo qaadi maayo suu diinta kor ugu qaadi waayey. barsaqo aad buu u dhib badan yahay. khaatimo wanaagsan qofkii la taga, khaatimo fiican qofkii la taga, khaatimo qurux badan qofkii la taga waa liibaani doonaa. khaatimo sayi'a ah, towxiid la'aan, macaasi oo lagu jiro, xumaan oo qofku uu ka shaqeeyo qofkii ku tagana wuu khasaari doonaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. qof walba wuxuu ku dul dhintaa lagu soo bixiya. war qof walba wuxuu ku khaatumaystaa lagu soo saara. qof walba wax allaala wuxuu ku dul dhintaa qabriga lala geeya. war camal saalix oo khaatimo fiican haddaad ku dhimato kaasaa qabriga laguugu geyn. war camal xun oo sayi haddaad ku dhimataa qabriga lagula geynaya. war qof walba waxay gebagabadiisu tahaa lala aasaa. in badan aan ku mashquulna taacada ilaah subxaana wa tacaala. wax badan shaydaanka aan iska ilaaliniyo zalalkiisa. war wax badan aan iska ilaalino islaamnimada aan qaadano. waayo barsaqa mar allaala marka la tago waa xayaato jadiid ah, waa caalam cusub oo aan horay u arkin. kaaga sii daran qof kula joogaa ma laha. caalamkan hadda aan ku noolnahay waa kii adduunka. ka qabrigaa la aadi doonaa oo la gelaya, kii aakhiraasa loo soo bixi doonaa. saddexdaa marxaladood ayaan mari doonaa. marxaladan waan u jeednaa oo qof walba indhuhu saaray. middaa labaad ee la aadi doono waa mid anaga qayb naga ah. waxaa noogu dambaysa marka ciidda lagu rogo qofkoo laga soo tago. waxaa noogu dambaysa mar allaala marka laga soo sahay qaato oo alaabtii lagu geeyey laga soo aruursado. waxaa noogu dambaysa mar allaala marka qabriga bannaankiisa looga duceeyo. waxaa noogu dambaysa mar allaala markay ummaddu dhaan ha layska cafiyo. wixii ka dambeeya waa asaga iyo rabbi subxaana wa tacaala. maxaa rabbi u hormarsanay subxaana wa tacaala? qabrigase maxaa loo shaqaystay? inuu nebigu dul istaagay buu yidhi limidli haada falyacmal ilcaamiluun. war saanoo kale dadka shaqeey ha u soo shaqaystaano. war meeshaan ha loo soo shaqaysto. qofkii shalay nala socdaa ciidda hoosteeda looga soo tegay. tii lacagta lahayd baa la soo aasay. kii xoolaha badnaabaa ciidda lagu soo rogay. wax meesha looga soo tegaa wax laga tegaayo ayaan markaa jirin. laakiin khaatimo fiicanaa lagu dadaalaa. war khaatimada sayidaa qabrigaa laysugu ciriiriya. xumaanta qofka badiya qabrigaa lagu ciqaaba. caalamka noocaasa waa caalam aad iyo aad u murugo badan. war dadku way ka indhala yihiin. waxyaabo fara badan oo qeybkuu ka mid yahay. haddii dadka iimaanka leh ay yihiinna dadka waxaa lagu tilmaamay yu'minuuna bilgayb, inay qeybka rumeeyaan. qabriga waxa ka dambeeye ku hoos jira ayaa markaa ugu horeeya qeybka. rasuulka sala allahu calayhi wasalam axadka mar allaala markuu dhinto khaatimo fiican ku dhinto, khayrka iyo wanaagga asoo ku dadaalaya dhinto. waayo xadiis baa tilmaamay qofka mu'minkaa wuu dhintaa bicaraqin jabiin, asagoo dhafoor dhididaaya. asoo dhafoorkiisu dhididaayo ayuu dhintaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. waxaa dhici karta in loola jeedo asagoo daalaa dhacaaya, xaaraanta iska ilaalinaya, ka murgaaya, xalaal raadinaya, mar walba tacabka iyo dhibkaa ku jira, salaad ku dadaalaya, kheyrkii wanaagga ku dadaalayuu dhintaa. saasaa dhici karta in loola jeedo. caraq jabiil buu la dhintaa qofka mu'minka ah. khaatimo wanaagsan buu la dhintaa. mar allaala markaysaa xayaatada uga bax